يا صومالي ما برسوا كيف تفا يبقى يا صومالي ما برسوا كيف تفا يبقى يا صومالي ما برسوا كيف تفا يبقى annagu haddaan nahay Soomaalida Itoobiya dalkayaga runta ee dhulkayaga hooyo waa Itoobiya maadaama dhulkayaga hooyo Itoobiya yahay Itoobiya waa hooyadaya marka annagu waxaan noqonnay haddaan Soomaali nahay ilmo hooyadii garan weyday baan noqonnay ilmo hooyadii garan weydayna waa ilmo la tuuray weeyaan hadday labada ubadihii ay isdiriraan inay hooyadii u dhaxaysay midna gacmaha qabato midna usha u dhiibto isma laha oo labadii saa isku dilaan annagu xukuumaddii Itoobiya kacdaba waxaan ka filannaa inuu isbeddel fiican oo sharaf leh ka yimaado af macaan iyo maartaan niyadsan baan nagu soo dhaweynaynaa baan nagu yidhaahdaa markay xukuumaddii aan shacabka u tunnay soo maartaan arrimihii qabsadaan iyo dawladdii qabsatana halkii tii hore bay nooga bilowdaa ilaa iyo maartaanay Minilik iyo wixii ka horreeyay iyo qarniyo badanba dawladda Itoobiya si mid ay noola dhaqmaysaa dadkaygu sidaa buu u dhimanayaa xitaa waxaa la gaadhay dawladda Itoobiya annagu ku dhalannay ahayn ka midka ahayn inayna yidhaahdaan adu meesha aad degan tahay ka kac waxaa degaya walaalka halkee la nageynayaa waddankeen annagu u guurnaa iyaan annagu ka mid nahay iyaan la noolaan karnaa haddii dalkayagina naga eriyo haddii dalkayagina noo oggolayn haddii annagoo walaalkaya isdille walaalkayana noo qabanayo annagii gacantana naga xidhayo walaalkayana la leeyahay usha la dhac annagu haddaan Soomaali nahay oo sidaa maartan noola dhaqmayo dadka Itoobiya integration ma lahayn noloshooda dhan dad waxay ahaayeen war isku hayn dad aan isbaran bay ahaayeen waxaan lahayn maanta waxaa joogtaan qarnigii 12aad adduunka waa la ilbaxay oo waa la fahmay oo waa la isbaranayaa laakiin Itoobiya way ka sii daraysaa dimuqraasiga Abiy oo aad nagu ballan qaaday Abiy oo dimuqraasiga nagu ballan qaaday annagu waxaan ka arkaynaa inuu wax runii ka jirin Abiy yudan waxaan annagu arkaynaa Abiy oo dimuqraasi aad nagu ballan qaaday inuu maanta waxba ka jirin oo fashilmay waxaan rabnaa waxaad ka cabanaysay qoomiyadda Oromo ee maanta madaxtinimada ay haleeshay dibtana haysatay baa iyagana haystay weligood dibtaa bay ku soo jireen way ka baxeen maanta iyagiina dagaalkii ay ku hore nagu hayeen bay nagu bilaabeen haddana dagaalkii sidii buu noogu socdaa waxna kala qabta iyo wax ma jiro waa la sukaya daawanayaa dadka yagii maartaanay kelilka shanaad ee Soomaalida Itoobiya la yiri dhulkii xitaa ay maamuleen dagaalka maanta ka dhacaya itaal uma laha iyo awood uma laha inay dhex yimaadaan ay ka hadlaan oo yiraahdaan waxa baa dhacay marka waxa weeyaan walaalayaal haddaan annagu dadkii Itoobiyaanka ahaa ee Soomaalida haddaan nahay waan dulmannahay Itoobiya hadday doonayso inay jiritaankeegu jiro midnimo inay jirto horumar inuu dhaco haddii la doonayo dadka Soomaalida ee qiimaha weyn Itoobiya ugu fadhiya ee Soomaalida Itoobiya hal la qiimeeyo sharaftooda ha loo soo celiyo dadnimadooda ha loo soo celiyo sidii loo fogeyn jiray weligoodba haddii loo fogeeyo dadkaasi waan fogaanaynaa haddaan annagu Soomaali nahay Itoobiya way dumi way baabi'i waxay ku noqon doontaa asaw jaahiliga halkay taagneed bay ku laami haddii kale dadku ha midoobaan ha sinaadaan ha wada jiraan anagu haddaan Soomaali nahay waan jecel lahay in nala noolaado biyaha nala cabo nala deganaado aan maartaanay wax mid cunno oo nala dego haddiise la yiraahdo waan kula degi waanan ku eriyi way xun tahay daraa dargigu dhulku laga qaatayna nooma soo celin dargigu waa qaladii iyo dadkii uu laayay lama soo celin magtoodii guriyihii sidii baa loo haystaa cadaaladdu goorma iman Tigreegi wuxuu nagu yidhi maanta cadaalad nii samayn tuka daran buu nagu sameeyey Hayle Silaasi siduu noo galay waa la ogyahay Mengistu siduu noo galay waa la ogyahay Minilik siduu noo galay waa la ogyahay maantana Abiyow waxaa dhacaya waa adduunyo modern joogtaaye wax ka bedel haddaanad ka bedelayn
dhibtaas Itoobiya hadday ka joogsan weydo Itoobiya way dumi way baabi'i waxayna ku noqon doontaa sida adduunyada baabaaday aad arkaysid maanta nabaday Stop atrocity against Somali community. Stop genocide. Stop atrocity against Somali community. Stop genocide. Stop atrocity against Somali community. Stop genocide. Stop atrocity against Somali community. Stop. Freedom, freedom, عاديتي freedom, عندفو freedom, دلهلة freedom, دردابة freedom, ملكة جبتي freedom, عاديتي freedom, دنيا freedom, دنيا freedom, دلهلة freedom, قرب عيسى freedom, عاديتي freedom, عندفو freedom, عاديتي freedom, دردابة freedom, عاديتي freedom, دنيا freedom, ملكة جبتي